barnaamijka arrimaha bulshada iyo ganacsiga. barnaamijkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay dhanka iyo corona iyo saameynta uu East Africa uu ku yeeshay. barnaamijkeenan arrimaha bulshada iyo ganacsiga haatan qadka Kenya waxaa si toos ah ugu jiro Yunus Khaliif oo ka mid ah agaasimayaasha Radio Somaliweyn. Yunus, waan ku soo dhaweynayaa. Axmed, waa maasantahay, waa dhawahay adiga iyo bahweynta Somaliweyn islaamiga. maasanid. Yunus, waxaa inooga warantaa qaabka uu corona u saameeyay khaasatan meesha aad joogtid ee Kenya. Axmed, waa su'aal fiican. runtii hadda waxaan ku suganahay magaalada Nairobi, waddanka Kenya. waxaan soo maray Mombasa, Malindi, Watamu, meelahaas oo idin. saameynta alxamdulillah sidii hore uu dhaamaa waddankan. culeyskii hore markuu cusbaa caawuqan oo caalamku ku cusbaa hadda wuu ka soo kabanayaa. laga soo bilaabo horaantii bisha sanadkan hadda bilowday ilaa maantadan waxa ay ku cad diiwaangelintooda inuu waddanka uu kaga dhacay ilaa 100,500 oo qofood cudurkan. dhimashaduna ilaa hadda waxa waaye 1733 ay gaaraysaa. saameyn xun markii hore uu ku lahaa, laakiin haddeertaan waxaa u malaysaa in dadku ay fahmeen qaabkii la isaga taxadiri lahaa iyo mar walba dhegta ku haya awaamiirta uga imaanaysa laamaha caafimaadka. marka haatan mis leedahay East Africa guud ahaanteeda corona waqtigii uu ku badnaa haatan ma ahano shaqadii ay bilaabatay, dadkii isku dhawaanshihii wuu batay, misleeyahay? aad iyo aad waa ka muuqata dhaqdhaqaaqa. walow aniga xilligaas aan waddankan aan joogin, laakiin mar aan la sheekaystay ama aan wax ka weydiiyey dhowr ganacsato Soomaali ah, waxay ii sheegeen inuu saameyn weyn uu ku yeeshay oo aad u xadiday ganacsigooda, hoos u dhac weyn ku keenay muddo dhowr bilood ah. markii waddanka ugu soo rogay inaan la furin goobaha ganacsiga iyo la isu soo bixin, hoos dhac weyn ayaa ku yimid ganacsigooda. laakiin haddeertaan waxaad u malaysaa markii laga qaaday hoos dhaca xayiraadda ganacsiga, in ganacsigu siduu caadiga ah inuu usoo laabtay uuna ku socdo. keliya taxadirka dadka la saaray ama mas-uuliyadda shacabka lagu celiyay dowladda ku celisay waxa weeye inay sitaan difaaca afka qofkan wada markaas ganaax ama ciqaab la kulmi karo. iyo habeenkii wixii ka dambeeyay 10 fiidnimo wixii ka dambeeyay ayaa mamnuuca waddanka in lagu socdo waddankoodin. taas ay hadda dadku ay aad iyo aad ula dhacsan yihiin. ganacsiguna hadda sidii hore uu ka dhaamaa, uu soo kabsanayaa. dadkuna waxaa u malaysaa inay tirkooda ay fahmeen in dantoodii ku jirto in ay raacaan awaamirta uga imaanaysa laamaha amniga iyo caafimaadkaba. Africa waxay ku eedeeyaan Yunus in dalalka horumaro oo kale ee talaalka ay isku koobeen. halkaas wax talaal ah miyaa jira? talaalka hadda meeshan wuu bilaaban, laakiin dowladda waxay qorshaysay 1.2 milyan inay talaali doonto ilaa iyo inta aan la gaarin bisha June bisha 6. halkaas 1.2 milyan oo dad ah waxayna u kala horumarinayaan sida loo kala daran yahay, iyo ka bilaabaya waayeelka dadka qaba xanuunka u daran inuu sahlan inuu qofka ku dhaco uu keeno inuu cimrigiisa uu soo gaabiyo. dadka noocaas oo kale ayay saarayaan diiradda koowaad. talaalkana wili muu bilaabay, laakiin intaas ay hadday qorshahoodu u yahay dowladda. haddii aan corona ka gudubno, su-aasheeda u dambeysa waxay noqon doontaa Kenya waxaa degan Soomaali tiro badan, ha noqdaan kuwii Soomaaliya kasoo barakacay oo halkaasi deegaan ku yeeshay iyo hantiba ku yeeshay iyo kuwa asal ku ah. waa sidee xaaladooda guud iyaga? والله runtii saa sheegto waa sax. Soomaali aad u badan meeshan degan dagaaladii sokay kadib. waxaa malaysaa dhulkii hooyo inaad joogtid meelaha qaar markaad joogto. ganacsiga haddii aan lahayd qaybihiisa kala duwan, restaurantyaal, hoteelo, dukaamada hoose, dukaamada dhexe iyo wax walbo maanta ganacsiga tiba xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin aad iyo aad ay uga muuqdaan Soomaalida. waxaa u malaysaa in dhulkoodii oo hooyo dad jooga kuma dhibtoodaan, waxaan dhib kala kulmaan. waayihii hore waa ka duwan tahay maanta.
codkooda waa la dhegeystaa waxaa u malaysaa inay qayb ka noqdeen dhulka Kenya waxna dhib hadda oo jiro oo saas oo weyn ay sheeganayaan dadkii kama aan maqlinin waana dadku way qanacsan yihiin waxaan isugu jiraa dad deegaan intaba dadka deegaanka inay meesha ku yeesheen u badan iyo dad hadda safaro uu ka xayirmay sida Mareykanka oo kale markuu yimid madaxweyne Donald Trump uu ka xayiro karo hadda dib u rajeynayaan loogu furo inay u aadaan dalka Mareykanka oo kale dadkaas isugu jiraan alxamdulillah waana lagu nimad qabaa dareenku waa fiican yahay intaan ka ogaa waa ku mahad celinaya Yunis aad iyo adinka mudan waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga oo maanta marti ku ahaa oo qadka telefoonka dhanka Kenya ugu jiray Yunis Khaliif oo kamid ah agaasimayaasha Radio Soomaali Weyn intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga mar kale iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo صعبت يا سويدا يا تيبي